وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ليال إنه نوحنا نهي أدومي إلهي استغينوا ونقلنا حدنا. runtii kelmaddaas waa kelmad qaboojinaysa qalbiyada haddii macnaheeda aynu fahmno waxaanu halkan uga tacsiyeynaynaa oo aynu maanta idaylkeena isugu nimid ganacsadayaal madax siyaasiyiin aqoon-yahano arday asxaab ehel idaylkeen inagoo isku duuban waxaynu halkan uga tacsiyeynaynaa waa guud ahaan dadkii walaalaha ahaa ee halkaa iyo kismaayo lagu xasuuqo lagu laayay gaar ahaanna gabadha walaasheenna ah qalbiyadeena runtii ku weyn tusaale fiicanna u ahayd runtii dadkeenna gaar ahaan dumarka hodan naaleeye ilaahay waxaanu uga baryaynaa idaylkood inuu qabrigoodii u waasiciyo ilaahay rawda min riyaad aljanna inuu uga yeelo beer janna xabaasha dembiyadooda inuu dhaafo qabriga ilaahay inuu u waasiciyo jannatul firdowsna inuu ka yeelo halka ay ku hoyanayaan waxaan kaloo u tacsiyeynayaa runtii oo aan leeyahay dadkii ay ka tageen aabaheed eheladeedii yani waalidkeed iyo eheladii aadka u dhow walaalaheed idayl iyo weliba saygeeda yaanan ilaaweyne hadal hilmaan kuma jire fariid jaamac oo runtii qalbigayga isna ku weyn eheladiisii oo dhan in ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo walaalayaal taariikhdooda ku laaban maayo laakiin waxaan aad iyo aad u bartay maalin runtii farxad ahayd maalin ay ilaahay uu qadaray in ay wada jiraan oo ay wada kulmaan oo ay midoobaan laba family oo aanan hore u kala fogaa waxaad garanaysaan guurku inuu yahay waxyaabaha ilaahay ummaddu uu isugu keeno union ama midnimo marka ilaahay dadka uu midaynayo guurka ugu horeeya waxyaabaha midnimada keena waxaa isku xirmaya laba familiga wiilka iyo familiga gabadha ayaa isku xirmaya waxa la guursanaya ama isguursanaya wiili gabar kaliya maaha waa laba family weeyaan kana wuxuu yeelanayaa aabbo iyo hooyo iyo walaalo gabadhuna waxay yeelanayaan aabbo kale hooyo kale walaalo kale sida la isugu xirmaya dambaalkaas marka waxaan u gudbinayaa dhalinyaradeena khaasatan wiilasha oo markay rabaan inay guursadaan aanan family aadeynin aanan caadadii u laabanaynin aanan amarka ilaahay ahaa ha lagu guursado gabdhaha ogolaanshaha ehelkood aanan raacaynin social media kasoo download garaysanaya gabdhaha ayaan dhambaalkaas u diraya dhambaalkan si fiican ha loo qaato walaalayaal maxay ku dhinteen dadka haddaynu u tacsiyeynay hodan iyo fariid iyo walaalaheed maxay ku dhinteen dadkan dad baa waxay u haystaan dadkii walaalaha dilay waa walaalo ay dileen walaalahood maxay ku dileen laisma weydiinayo waxay ku dileen argagixisada ayaa la iska leeyahay laakiin meesha argagixiso keliya maaha dadkan waxay u haystaan dilkaas inay ku tagayaan janno war sow garan maysaan social media ha qaadaana fariintan ilaahay wuu xarimay dulmi wuu diiday ilaahay isaga iska bilaabay wuxuu yiri waxaan iska xarimay dulmi gardarro inaan idinku gardarooda adoomadeedii baa tiine dhexdiinana waxaan ka yeelay inaad isku gardarootaan xaaraan baan ka yeelay ha isku gardaroonina waa hadal ilaahay waa xadiisul qudsi dadka marka la halkaa ku dhintay waxaa la yiraahdaa madluumiin waa la dulmay yaa dulmay walaalahood kalaa dulmay waxa ay ku dhinteen waxaa la yiraahdaa dulmi dadkii dadkan laayay waxaa la yiraahdaa zaalimiin ayaa la yiraahdaa qof walba magaciisa waa in loo sheegaa si looga fogaado walaalaha madluumiinta ah jannay galayaan waana u duceynay ficilka lagu dilay dulmi ayaa la yiraahdaa waa kii la iska xarimay haddii dulmiga wax lagu dilo dadkii dilay maxaa la yiraahdaa ظالمينta ilaahay muxuu ku sheegay kitaabkiisa ma inay janno galayaan dulmiga ma janna lagu galaa
haddii lagu galayo miyaa laynoo diidi lahaa imisaa dulman maanta dulmiga sawma ogidiin waa labada shay ee ciqaabteedu aanu ilaahay aakhiro la sugin ee adduunku u soo dedejiyo waa baqiga ama dulmiga iyo caaqul waalideynka labadaa ilaahay lama sugo aakhiro walaalkaa markaad dulumtid dhiiggiisii banaysatid aad xaqirtid cirdigiisii ku dhacdid xoolihiisii dhacdid ilaahay kula sugi maayo aakhiro bal adduunku kugu soo dedejinayaa iska dhaaf ninkan daalimka ah in uu janno tagee iisoo duceeyuu leeyahay janno ilaahay ayna geeye bal idinkaan kulligiin idin shafeecaya oo aan janno idin bal eeg ilaahay baan kugu dhaarshay diinta ilaahay sida loogu gardaroonayo daalimka ilaahay ma jannuu u diyaariyey mise cadaab buu u diyaariyey isagaa inoo sheegaya ma aha waxaynu innaga samaysanayno cidna cidda kale janno ma geyn karto alle wuxuu leeyahay innaa actadnaa lilظaalimiina naaran janno ma uusan dhihin dhaalimiinta kuwa walaalahood dhiigooda daadiya oo gardarrada ku daadiya kuwa walaalahood xaqooda dhaca kuwa isdulma kuwa cirdigaaga gala kuwa maaragtay xaq un si gardarraa walaalahood ugu xadgudba haddaanay ka toobad keenin xaggee loo diyaariyey naar baa loo diyaariyey ilaahay naga fogeeyo walaalayaal iyo inaan beenbeen isugu sheekaynin cid janno ku geyn kartaa ma laha walaa rasuulka aanan janno ku geyn karin mid hadda joogo dhaalima iskaba dhaafe jannada waa laynoo sheegay waxyaabaha lagu tago idaylkeen waynu isdulannay waxaan rabnaa marka halkan dulmiga maadaama aynu ciqaabtiisa ogaanay oo halka ay tahay weliba ilaahay uu sii diyaariyey 5 shay oo kale eeg wuxuu leeyahay qofkii walaalkii gardarro ku dilaa dhiiggiisa banaysta oo xaqdarro ku dilaa fajazaa'uhu جنة الفردوس ميا اللي يري ومايا فجزاؤه دغيسو جهنم وأوغه الرئيسا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وشن جهنمو يعرى يلعنك يسو كواريا انت سالس دبا دغي انغا انا عقلي انه ابليس نغددي waxaan dadka ugu sheekaynaynaa jannad galaysa haddaad cali xuseen faaraxi haddaad laysid kuwan dhiigooda jannad tagaysaa waa khalad waayo jannad sidaa laguma tagayo jannada ilaahay baa inoo sheegay sidii lagu tagi lahaa allah idan barakeeyo waxaa halkan joogo kale oo runtii aan salaamayaa walaal qaali igu ah oo isagaba madluum ya waa honorable Yusuf Hassan walaalkeen oo runtii ka darnaa hodan naaleeyay oo wax qabadkiisii runtii u istaagay raaxadiisii buu ka tagay oo wuxuu ka tagay noloshiisii oo wuxuu ka tagay awlaadiisii 24 saac isli wad garanaysaan qashin qub ayay ahayd wada la marayo ma jirin guryuhu siday ahaayeen Soomaalidii masaakiinta ee soo qaxday sidii loo xirxirayay loo dhacayay loo dulaysanayay uu istaagay keligii kadibna muxuu sameeyay magaalada quruxda badan dadkaas xaqoodii uu dooday oo uu garab istaagay walaalihii magaaladii oo uu nooleeyay ma ka nabad galay dhaalimiinta ma ka nabad galay bal waa la dulmay bal waa la qarxiyay masjid baa lagu qarxiyay marka dadka naxariisan mayaan dadka dilaya dadka dulmaya ka warama hadaan soo sheekayna jannay galayaan qaar baa la safan kuwa iyaga dhaalimiinta yaan la safanin ha laga soo horjeesta meel walba dambaalkana ha la xambaaro ha la qaado walaalayaal idaylkeen waynu kala tagnay walaalaynuna waynu diidnay walaalnimadii idaylkeen ma garanayo waxaad igu careysan tahay ma garanaysa Aisha waxay deeq ugu careysan tahay waxay nasteexa Faadimo ugu careysan tahay Ali wuxuu Cabdi ugu careysan yahay war maxaana kala geeyay idaylkeen soo walaala maahin soo ilaahay walaala naga ma dhigin oo muusan dhihin innamal mu'minuna ikhwa ومؤمنين وولاله سو رسولك نما ولالين او موسن دهين المسلم اخو المسلم مسلمك وولالك مسلمك كله سو هدنا موسن دهين وكونوا عباد الله اخوانا ادوما اللي او ولاله نقضه ما لا يري waxaanu diidnay bal ii sheegay yaa garan karaaya wad soo careysantiin oo 5 sano 10 sanad kala maqantihiin laba is dhashay laba wada dhalatay laba jaar ah waa kala maqan yihiin hadii la weydiiyay garan mayaan waxay ku kala maqan yihiin waxayna kala geeyay waa qabyaalad iyo siyaasad bayna kala geysay waxaan halkaan dhanbaal uga dirayaa
dadkeena siyaasiyiinta walaalaheena qalbiyadeena ku weyn hogaamiyaalkeena mas'uuliyiinteena dadkaanu dooranay wiilasheeni walaalaheen waalidiinteena ahaa ayaan halkan dhambaal uga dirayaa war intaydan siyaasadda gelin siyaasaddan wasakhda qurunka ciriiriga ah ina dilotayna kala geysay intaynan bilaabin ka hor walaalaynu ahayn iimaankaana walaaleeyay ilaahay baana walaaleeyay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah taasaynu walaalo ku ahayn 5 sano ama 4 sano 10 sano aanu siyaasad galay maxaa ka dambeeyay siyaasadda ilaa waa laga tagayaa kii shalay madaxweynaha maanta ma aha kii shalay mas'uulaha maanta ma aha siyaasadda maxaa ka dambeeyay oo haraya waxa haraya waa walaalnimadii waxa aynu la dhimanaynaa waa walaalnimadii waxa ilaahay horti aynu la tagaynaa waa walaalnimadii war waxa walaalo noqdo dhahayo waa Allah aanu u tagi doono waa Allah ina xisaabin doono siyaasad qurun ah yeysan kala geynin walaalnimadeena aynu walaalnimada ilaalino wallahi ilaaha aanu u noolahay ayaynu hortagaynaa walaalnimadu wax ka qiimi badan ma laha dadkii hore way iskhilaafi jireen diin bay isku khilaafeen laakiin khilaafkoodu wuxuu ahaa walaalkay wuxuu aaminsan yahay sidan aniguna waxaan aaminsanahay walaalkay wuxuu aaminsan yahay walaalkay wuxuu yiri sidan anna waxaan iri sidan war walaalnimada gorgortan ma gasho yayna walaaltinimadeena marnaba gorgortan galin Allah idan barakeeyo hadalku waxaan u dhigayaa waa siyaasiyiinta inala jooga walaasheena arkaa Safiya runtii aad iyo aad baan jecelahay gabadhaas socdaalka yaraa ee aan ku aadayay masalaani iyadaas ayaa runtii qaban qaabisay oo socodkaas oo dhan runtii lahayd Allah barakeeyo aad baan idin salaamiyaa idelkeen siyaasiyiinta ama madaxda ka socota Soomaaliya waa dhulkeena runtii aad baan iyagana runtii u jecelahay waan ku noqon doonaa halkaas waxaan rabaa marka Allah idin barakeeye kulankan hodanaaleey aynu ugu barordiiqeen si ilaahay u barakeeyo waxaanu rabnaa marka hore ilaahay wuxuu caawiyaa dadka iyaga is caawiya dadka laabta isu xaara ayuu ilaahay caawiyaa idaylkeena inteenan aynu ka bilowne waa layna dulmay inagana waxbaynu dulanay bis cafineynaa horta inaga ma is cafineynaa laabta ma isu xaareynaa qalbi furano qurux badan ma ku wada shaqaynaynaa ilaahay ma ku raali gelinaynaa in badan baa layna dhaco inaga maqane inta iyada ah ma ku raadsanayna cafi aynu cafino dadkeena dulmay illa cafisku waa cizi waa sharaf waa farxad waa nolol waa wada jir waa jacayle inta soo dhan waynu u baahanay ma ku raadsanaa ma is cafinaa ilaahay ballan muu qaadayna Allah ayuu barakeeye aan waa duceynayaa taaga gacmaha inta ilaahay dartii isu cafinaysa walaalo du cafinay taaga الله إذا بركيه إيدجيا إلهي وحن كبر يقفل بو إلهي درتي قلبي سوالالك ما أنت وعفيا إلهي هعفيه دنبي سنة هدافو إلهي قعنتنا تاكيني عافيس كان وحن كبر الله إذا كسي عافيمات إلهي قلبي انشراح ينقليو إيماني حكمة الله إذا كقبض حيو إذا الكين وين وضع حنون سنة هاي حنونك الله إنه قادو حنونك عذر عافمة الله إنه بدله علاقة النبض الله إنه بدله كلا تقوى ذجر الله إنه بدله إلهي وحن كبريه وينو كلا تجنيه وذجر كين الله إنه دوره عفيس كاسي قعنت أينو تجنيه وذجر كين الله كل دوره إن بدن بأرضيه وحبرنا يس إلهي وحن كبريه فهم في عن الله فيه شقلان باجرته إلهي وحن كبريه شقة إرزاق حلال إنه كان مستقبل إلهي هاي